بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا مهد سله عافمات كينسي إنه هو الداقل معين كي سفرها بضله. الحمد لله بنو لان هاي waxaan maanta isla istaagi doonaa insha Allah taala mawduuc yar oo kooban duu ilaahay qadaro mawduuceen wuxuu daaran yahay maanta arrin yar oo ku badan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan waqtiyada dambe oo khaas ahna dhalinyarta ayaan insha Allah taala ku eegi doonaa mawduucyada badankayga waxaynu ka hadlaa dhalinyarta maadaama kanaalkeena waxa la yiraahdaa sumada dhalinyarta marka wixii dhalinyarta u faa'iido ah baan insha Allah taala ku soo qaadan doonaa mawduuceena maanta wuxuu daaran yahay arrin yar oo kooban insha Allah taala waan soo koobi doonaa fiidiyoga dhalinyarta waa laba nooc dhalinyarta caalamka joogta waa laba nooc ama dadka caalamka ku nool waa laba nooc dad wanaagsan iyo dad xun marka soo horjeedkayga wanaag waa dad xun ka soo horjeeda say la wada garanayo oo ciirna maxaa ka soo horjeeda ciirna dhulba ka soo horjeeda kala subhanahu wa ta'ala waxa uu xiisu abuuray marka dad wanaagsan waxa soo jeedo xun inna wada soo yar kooban oo fahansiino dadkayna dhalinyarteena khaasatan waxaan focus ka saarayna dhalinyarta hanu kala saar laba nooc dhalinyar loo yaqaan xiro iyo dhalinyar loo yaqaan xayraamin labada nooc baynu kala saaraynaa talo waxaan ku horin doonaa ciwaanka maanta insha Allah taala laba ciwaan ka sameyn doonaa ciwaanka maanta waxaynu ku horin doonaa xayraamintu waxa ay u yaqaanaan xirooda ama sida ay u garanayaan ama sida ay uga hadlaan sida ula dhaqmaan marka la leeyahay xirooda horta hadaynu faasirno labadan magac oo ah xiro iyo xayraan waxa weeye horta xiriga waa qof dariiqii Ilaahay ku socda oo iska wanaagsan oo miskiidka iyo wanaagiisa ka shaqeeya ayaa loo yaqaan maliyad Soomaali u taqaan waa xir qofkaas xir weeyaan isku dhawaan wixiisu waa hadii waxiisa aad faraha la gashay ka kala daadana waxa la yiraahdo duubtid sabab yaqaan xayraan waxa loo yaqaan waa jilbaha dilaacsan leh kabuhu ka dhamaadeen ee suuqa wareega ciida wareega ayaa xayraan loo yaqaan way hadii wada fahnay hadaba xayraamintu xirooda muxuu yaqaan waxa jirta marka qofku uu yahay qof wanaagsan oo khayr ka shaqeeyo oo miskiidada ku xiran oo walaagiisa ay irtixaafada iyo miskiidka iyo waxbarashadiisa u dhaxeeya xidhaa way xiroonayo ninkaas meelaha ku arkimaysid garoomada meelaha ku arkimaysid yani iyagu sala garanay inta kale xayraamintu ani waa xiriga qoray ka waxay u yaqaanaan qofka xiro waxaynu u dacaydeen in badan waxay ku dacaydeen xirooyan oo xiro qofkaasi waa xiro miskiidka ma kama soo baxay qornay qofkaas waa xiro garoonada oo miimaad qornay say u sii wadeen ayaga waxay gaarsiin arrin khatar ah in qofkii wanaagsanaa ay agtooda ka nacaan oo ay sanifaan buu yiraahdaa qofkaasi marka xiroogaad leedahay waxba ku qabanaya xiro lama soo dhaweysto qornay marka arrinta tala marka doonaysid mid intan jeexan oo yani xayraanimadu madaxiisa kor u dhaaftay kaasi waa arrinta loo dhigtaa waxyaabaha kamid ay ka aaminsan yihiin waxa kamid ah dadka maxaynay dhalinyarta loo yaqaan xayraamintu waxay ka aaminsan yihiin dadka xirooda ee dadka yani wadaadada oo garanayaan miskiidada ku xiran ma sha Allah waxay ka aaminsan yihiin dad inay nolosha ka dib dhaxsan oo khamiiskan bay moodeen nolosha ka dib dhaxsan waxa kamid ah tusaalayaasha soo qaataan si yar kooban soo koobno marka uu soo baxo nasiib leeyahay bal kubad soo ciyaar ama bal meelaha yartag maanta xiriga xagga maray ma arkaysaa qoonay ama waxay bixiyaanba marka la wada joogay markay kubad ciyaarayaan dadka yarada masaakiintu waqtigoodu uu nidaamsan yahay oo khamiisi jimca la ciyaarayo waqtigu yani inta bay ciyaaraan badow bato marka hadii ciyaarta ka horeysa ciyaarayaan oo kale waxay yiraahdaan maanta xiriidi baa ciyaaras maanta xiriidi ciyaars يعني كلمتي سيدا لو يعني حرو waxay isku bedelaysaa in qofkii xirowga ahaa ay miskiinka ahaa miskiisku xidhnaa sidii xiro loo daba soo aad baraka soo khamiiskii tooray oo intii xirowga ku lahayd dhinac ka raacay waxaan oran lahaa hadaba waxaan u diri lahaa dhalinyartaasi wanaaga dadka ku caayisa hal joojiyo oran lahaa wanaag in la isku booriyo mooyaan wax laga daydo qofka wanaaga badan inaad wax kaga dayto mooyaan inaad say ku xumaysan oo digii aad ku aflagaadaysan waa khalad weyn khalad aad weyn qof haduu khayrka wado khayrka shaqeynayo oo wanaagsan yahay wanaagiisa kaga dayo laakiin haduu kharaabsan yahay kaasi kharaabkiisana ka sax oo wanaag tus waxa oran lahaa kuwa kale masaakiinta ay xiroodan leeyahay ee miskiidada ku xiran
dhaarintiinu iyo miskiin iyo xerownimadiinu haddii tahay mid ilaah subxaanahu watacaala daraadii u samaynaysaan hadallada kuwan yaryar waxbay naga qaadi maayaan. laakiin hadday tahay ha laygu arka iyo istus dee waa maxayna arrinkaaga wuxuu noqonaya inaad kuwa dhinac ka raacdo. marka waxaa odhan lahaa dadka hadalkooda marnaba ka ammaan heli maysid oo kale inoo sheegay. qofba wax kaa sheegaya, qofbaa ku neceb, qofbaaba yacni caalamku way jiraan wax walba. marka camalkiinu ha noqdaan camal aad ilaah subxaanahu watacaala dartiisa u qabanaysaan. waxaynu barnaamijkeena kusoo yarkoobi doonaa dhowr yaroo qodob oo maxayna u dareyno dadka maxaynay dhaleecaynaya dadkaas wanaagsan. waxaynu leenahay waa dadka wanaagsan aad dhaleecaynaysiin waa dadka berri culumaynii noqon doona, waa dadka berri adigu marka aad gabadh yar soo jeclaato dee maherka kugu xidhi doona aad isu mid doontid kii aad xiriga ku lahayd shalay baa daraad aad kii aad maalin dhown ku lahayd xiru dee isaga unbaa haddana kuu guurin waa sida caadi layska wada garanayo. marka waxaynu leenahay arrinta qofka wanaagga ha ku necbaan hana ku caayin, ha igu daran lug dheerna ha noqono. saaxiibkaaga dhanka xiiran marka uu qofku yidhahdo miskiin khamiisidaas ka xidha xiro waa tahay adna iskala dawraacin oo xiro waa tahay isku odhan. marka arrinta inaad wanaag dad ku cayidna waa khalad. inaad wanaagiisa iyo qofka inaad wanaagiisa aad kaga dayto mooye inaad ku aflagaysana waa khalad. waxaynu ku heli doonaa insha allahu tacaala barnaamijkeena xiga dadka xiruudun waxay ka haminsay dadka xeeraamanta. insha allahu tacaala waa soo koobaynaa barnaamijyadeena intaa baynu kusoo koobaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.